barnaamijkeenu maanta wuxuu daaran yahay haweenka iyo ka qaybgalka siyaasadda. Haweenku siday uga qaybgali karaan siyaasadda ayaynu farxiyaa soo dhawow Rabadaan Kariim. Rabadaan Mubaarak waan dhawahay bahda Abra Media iyo Hibaaq idinkuna wad maasantiin. Waa hagaag farxiyaa haweenku maxay muhiim ugu yihiin inay ka qayb galaan siyaasadda? ugu horeyn waxaan ogsoonahay bulshadeena tirada guud ee bulshada reer Somaliland waxa u badan waa haween. boqolkiiba inta ugu badan waa haween. waxa la oran karaa maadaama bulshadii boqolkiiba inta ugu badan ay haween tahay inay bulshadoodii matalaan oo baahiyi bulshada yaalay ay ka jawaabaan ilaa waaba inta ugu badnayd taasi muhiim ugu yihiin because wadankeena waxa maxay doorashooyinka ka dhacay doorashooyin dimuqraadiya oo hal cod iyo qof ah taa macnaheedu waxa weeyaan bulshadu iyaga codeeya bulshadii codeynaysa waxay u badan yihiin dumar marka taas ay ugu muhiim ugu tahay bulshadii waxa u dhigan tahay bulshadii ma helin matalaad dhaba haddii haweenku ka maqan yihiin maxay hay'adaha saxada siyaasadda